waxaa si rasmi ah maanta uga furmay degmada Aare Cadde ee ka tirsan gobolka Sool shirkii nabadeynta ee lagu soo afjarayay shaqaqooyin u dhaxeeya labada arda oo hore shaqaaqa ugu dhex martay magaalooyinka Jidbaale iyo Boocdo ee ka wada tirsan gobolka Sool. Gogasha nabadeynta waxaa dhigay beesha Maxamed Siyaad iyagoo u dhigay beesha kale ee walaalahooda Jaamac Siyaad. Afuritaanka shirka nabadeynta beelaha walaalaha waxaa ka soo qayb galay wafdiyo kala duwan ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda warfaafinta, saraakiin, madax ka tirsan xisbiyada iyo kulmiye, maamulka gobolka iyo kan degmada, ismaacu qaal waxgarad qurbo joog iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. ugu horeyntii waxaa halkaa ka hadlay barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere. runtii madashan qurxoon ee Ilaahay suukan keenay waxaynu isugu nimid waa laga wada dharagsan yahay ku noqon maayo waa inaynu nabad Ilaahay beerkooda burcad isu mariyo labada family ee walaalaha ah ee dhibaatadii shaqada soo kala gaadhay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland saad ogtihiin ba nabadda qorshe ka leedahay qorshaha ka leedahayna halkaas ka muuqda runtii culayska inta leeg heer wasiila heer ciidana heer runtii siyaasiyiina iyo inta ay soo dirtay baydin ku dhantahay waxaan ka rajeynayaa inuusan colaadan maanta taa inuu ugu dambaysiyo uusan inugu soo celin colaadan oo deegaankeena ka dhacda. waxaan rajeynayaa midho inay ka soo baxaan. waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii wuxuu ahaa dadaal weyn ka geystay sidii shirkan u midho dhali lahaa. xubnaha golaha wasiirada ugu horeeya wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaan mahadnaqayaa ciidanka amniga. sidoo kale waxa iyaguna dhinacooda ka hadlay uqaasha labada beelood ee walaalaha. waxay leeyihiin sabir iyo iimaan Allah ina ka siiyo intii dhimatay intayna ka dhaawacatayna Ilaahay ha booga dhigo. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inaan wax dambe oo colaada oo aanu ka naxno aananu dibidii ka maqal. golaha kan ama kulankani waa kulan nabadeed, waa gogol nabadeed weeye. waa nabad, waa gogol nabadeed, waa nabad, waa gogol nabadeed weeye. ilaahay haynoo aqbalo nabadda loo sharaxay halkan oo la isugu yeeray bulshadan aadka u fara badan. Allah haynoo aqbalo. wada tashanayno iyo sidaynu ka yeelayno maanta ay furantay waynu wada leenahay, taladeeda waynu wada leenahay. waxa weeye midna waan ku darayaa wararta aamin baa loo baahan yahay. nin baa wuxuu yidhi wararka nabad baa loo yimi hadduu isu yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu culimo yahay nin walba roolkaad ku leedahay nabadgelyadaad leedahay. shucuurtayada iyo niyad samidayada iyo culayskayaga iyo inay nabad inaga go'an tahay waad aragtaan, aad iyo aad baad u aragtaan. sidoo kale waxaa iyaguna dhinacooda ka hadlay isimadii aqoonyahankii siyaasiyiintii ka soo qayb gashay afuritaanka shirka nabadeynta labada beelood. waxaan idin leeyahay magaciina iyo sharaftiina ilaashada. waxaan idinku dardaarmayaa marka aad gogosha aad wada fadhiisataan inaad waxa weeye gacmaha isqabsataan, inaad waxa weeye Ilaahay ka baqdaan. in maanta waa la idin eegayaa ilaa madaxweynihii baa idin eegaya ilaa xukuumaddii Soomaaliya ku heshay meesha joogtaba inaad waxa weeye wanaagga ay qabteen ummadaasi aad ugu abaalgudaan, inaad guryihiina ka talisaan oo reerkii ninkii gardan ninkii cudxiga ha qabto oo hawshaas ku dhamaato sida gogosha loogu dhigay oo ay nabad u tahay oo loo kala bugsanayo. haddaynu hormuud iska wada dhino guryaheena wax ka qaba weynina eegada waa guuldarro labaatan ogaada odaya. shaqayno aanu wada shaqayno oo aanu ka shaqayno dadkan inaysan isdilin. idinkuna doorkiinni maamul iyo dawladnimo haysta, annana doorkayagii dhaqanka aanu samayno. soo aqbashay waxaan filayaa oo aan aad iyo aad ugu rajo weynahay oo aanu kuwa dhex jiraa in haddii aan laba qadarka 4 saacadood baa la qabanayay ka yar inay ku dhammaan doonto insha Allah ta'ala biidhnillaahi kariim. tani maanta qabasho leedahay halka inaga koobnaato. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan nabadda door ku lahayd. meelka loo leexin ujeedada gogoshan iyo shirkan iyo waxa dadku ninba meel ka soo orday waxa weeye in nabad la helo. shirkan ujeedadiisu waa nabad. khilaafka halka ka dhacay waxaan leeyahay samir iimaan Allah inaga siiyo. qofku wuu iska dhacaa carab iyo daanbaaba
isku dhaca. gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Sarmaan Yuusuf Cali Koore iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Heer Farato. xukuumaddu iyo dawladdu inay wax badan bay qabatay waynu u baahanahay in aynu talo isugu nimaadno waxa la wixii la kala tabarayna laga hadlo nabadda maanta aynu u nimid anagu ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxa aanu ku leenahay waa wax la garan karo waxa weeye inaanu nabadiina ilaalino inaanu isu keenno inaanu idin facilitate garayno jawi aad ku wada hadashaan inaad cidda khaldan farta ku fiiqdaan inaad cidda idin qabsoomi weyda aad tiraadaan hebel baa noo qabsoomi waaye ama qof hebel baa noo ama cid hebel baa noo qabsoomi waaye dawladday ka qaba waxaanu jecelahay inay arrintaasi reer ku dhammaysto sida ay garaadadu u yiraahdeen in reer ku dhammaysto ayaanu aad u boorinaynaa waynuna reerkuna heshiis buu gaadhayaa insha allahu cid walibana guusha qaybteeday ku leedahay waxa weeye inaan idhaaho shirki waa inoo furan yahay wada hadalkiina waa inoo bilaabmayaa oo aan ahayn waan isu joognaa midhu maan ku darayaa waxa weeye sidaa la idiin sheegay ee jaranka iyo wasiirka ay idiin sheegeen dawladda Soomaaliland xil baa ka saaran dalka iyadaa u dawladaha iyadaa xil ka saaran yahay waxaan ahayn inay nabadgelyada ka midha dhalisaan oo ay leedahay ma jiro oo dadka ay u xil saaran tahay iyo deegaanka iyo dadweynaheeda inay nabadooda iyo noloshooda ilaaliso waxaan ahayn oo hoose oo dadka qaarkood ay ka hadlayaan oo u yaalaan ma jiro وقدر تربي 5 TV لا سند